عبرهن عكرانيو وحصد ذي أولي ذن عنيد عدي عالمك ورشد خالي مركي عرق غذيو أيامك عيين إميلادي حماتو إركا روكا ديوان إركا روكا ديوان عالمك ورشد حلوه عكيهم مركينات كوغادين العصرية أناغا نغو نقوي عقبات waxaan ahay Cabdirasaaq jaamac football marka hore mahad Ilaahay baa iska leh Ilaahay inagu kulmiyay degmadan aynu joogno tuuladan waxa la yiraahdaa Galbarwaaqo ninkii aanu garanayna higla fuulaan laakiin hadda waxa la yiraahdaa Galbarwaaqo waxa nala jooga maanta xudun gudoomiyihii xudun wuxuu noo keenay biyahaas waa biyo caawimo ah waxa looga ugu deeqay gobolka Sool talabaad waxaan ka hadlayaa magaalada aas-aaskeedii xilliga la aasaasay waxa la aasaasay 2016 inta ay taagnayd waxayadaha oo toos noola shaqaysa wali ma aanan arag maamulkuna saani noolama shaqayn laakiin waxaad moodaa hadda inaad Ilaahay noogu soo dhiibayo ay noo furmeen waxaan ka hadlayaa baahiyaha aas-aasiga ah iskuulka anaga dhisanay waxa noo dhistay hodan naaleeye marxuumadii dhimatay Ilaahay u naxariisto oo aan noo dhameystiran yahay macallimiinta iyaka siiyo mushaharka Reer Axmed Saciid naaleeye waa noo dhameystiran yahay waxaanu dhisanadoo kale malcaamadii iyo MCH-ku dhisma ahaan waa dhameystiran yahay qayb waxa noo dhigay Reer Axmed Saciid naaleeye Ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo wixii naga dhiman ee agabka naga dhiman waxaanu ka rabnaa maamulka degmada xudun reejan ahaan Sool inay noo dhameystiraan gabadh baa joogta waa voluntary bay ku shaqaysaa agabku nooc walba waa u baahanahay inta markaan haddana ka gudbo magaaladu ceel male oo baraaga male hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga ah waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaan biyaha hadday barkadaha noo sameynayaan waa noo qodan yihiin qaar waa naga jaban yihiin hadday ceel loo qodayaan waa u baahanahay waxaanu kala u baahanahay magaaladu booliis male oo bileys male oo xero amni male inaanu booliiskii helo taliyihiisiina helo dhiskii iyo hoygiina helo shaltar ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxa la yiraahdaa maxamed cabdulle maxamuud ka tirsan deegaanka Galbarwaaqo ana xoghaynta deegaanka horta Ilaahay baa mahadle xanuun mahad celinayna golaha deegaanka degmada xudun oo hogaaminayo maayarku inoo yimi halkan biyaha noo keenay deeqda ay ka yimi maamulka Somaliland waan ku gudoonay si qalbi furan iyo gacmo furan baan ku gudoonay inta ka bacdi wixii hore waa laga hadlay laakiin anigu in yar baan ku darayaa waxaan ku darayaa hay'adaha dawliga ama kuwa localka kuwa maxalliga waxay ka shaqeeyaan qayb ka shaqeysaa sida baraagaha qodan xirfadaha intu qofku qotay xoog isku qotay qodi dhameyn kari waayay kuwa badan baa jira oo ka hawl gala oo dhameystira
waxaan ugu baaqaynaa ciddii arrinkaas quseeyo ama hay'aduhu quseeyo jamhuuriyadda ka shaqeeya godad badan baa meeshan ka qodan oo dad danyari xooggooda ku qoteen oo aanay samayn kari waayeen in baraagaha naloo dhammaystiro oo hay'adaha ku shuqul ay si degdeg ah nala soo gaaraan waayo iyadoo ay meesha ka jirto baahi biyo la'aaneed oo aad u sarreysa aad iyo aad bay biyaan looga taagan tahay aanuna ka tirsannahay deegaanada Somaliland maanta ay ugu horeyso deeqda Somaliland iyo maamulka soo gaarkiisu maanta noogu horeeyo annaga cod baan la ka qaadan jiray laakiin waxaan codkaygu naguma soo noqon jirin maanta baan haynaa wax naga soo noqday Somaliland fariinta aan u diranaana waxa weeye in la kala qayb qaato biyaha nooc kasta tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamka sharafta badan waxaan ku salaamayaa oo ku soo dhaweynayaa maamulka iyo odayaasha iyo haweenka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka maanta nooga yimid degmada xudun annana waxaanu joognaa oo waayeelkeedii iyo odayaasheedii aan ka mid nahay tuulada Higlafuulaan Soomaalida waxay ku mahmaadaa intii ceeltira jidkii waa yaalado intii maamulka Somaliland taagnaa ee jiray Higlafuulaanna waa taagnay intii degmada xudun jirtay Higlafuulaan ma jirin laakiin intii maamulka Somaliland intii uu xukuumadda hayay reer Somaliland ay xilka la wareegnay maamulka tuuladu waa jirtay sanadkan cusub ee maanta ka hortow wax noo qabsoomay oo hadday maamul tahay iyo hadday hay'ad tahay iyo hadday noo qabsoomay oo nooga yimaada gobolka nooga yimaada madaxtooyada oo nooga yimaada dawladda oo ka yimaada degmada awal waa ku cilqabi jirnaa waxaan islahayn de waxba meel la marsaday oo de bukuuron yahay waxba waan idinka leeydi soo gaarsiin ama tuulaaba tihiin oo waa la iska kiini laaway laakiin haddaan aad ugu dhabagalay waxaan ogaan de nimanka sanadka maanta xilka qabtay ilaahay mahad ka gaadhay ilaa iyo barasaabka gobolka ilaa maayirka gobolka ilaa iyo kuwa degmada waxqabadkii ugu horeeyay gobolka aanu ka tirsanahay gobol Sool waad aragtaan saaka waxa nooga yiri laba baweedood oo mid boqol qaada waa biyaha afcadka waa la isugu soo guuray tuulada waa tuulo dal ballaaran ku taala waa tuulo deegaan ballaaran ku taala ummad fara badan baa isugu timi ilaa iyo mudug bay ka timi qayb waxay ka timi ilaa burcaagteeda hawd bay ka timi geel bay u badan yihiin reer guuraana waa weheliya meeshu ceel male matoor biyo male baraago waaweyn oo biyo haddii ay galaan dee la hayn kara malaha oo laga cabi karo guriga kani wax badan oo aanu lahayn oo xagga arrimaha bulshada ka dhiman waa jiraan MCS waa ka dhisan yahay iskuulkiina waa ka dhisan yahay iskuulka ilaa dugsiga sare ilaa dugsiga waa ka dhisan yahay ina gabar lay oran jiray ilaahay waa naxariista janna Allah ka waraabiyo Saciidna leeyaa dhistay xagga caafimaadka MCS waa dhameystirnaa oo xagga dhismaha wax ka maqan ma jiraan laakiinse maalgelintiisii iyo horumarkiisii waa ka dhiman yahay oo waxaanu ka sugaynaa oo aanu isleenahay de wax waliba maamul bay soo maraan maamulka caafimaadka iyo way soo marayaan wasiirada caafimaadka idin iman doona wala idin la shaqayn doona waxyaabaha in badan waa sugayn waxay la tahay hadda maanta alxamdulillah rabbil caalamiin annana waa ka ajiibnay ilaahay baa mahad leh waxaan u mahad celinaynaa dhamaanba shaqaalaha maanta cusub ee maamulada ilaa gobol ilaa degme waxaan leenahay ilmaadeerayaal awal deewaana la ilowsanaa laakiin maanta aan xasuusateen inkastoo aad dhawaan idinku xilka la wareegteen wartuuladu wixii ay ka dhiman amni badan bay u baahan tahay booliskii bay u baahan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ilaahay baa mahadsan marka xigta waxaan u mahad celinaa maamulka degmada xudun oo halka kan bariyaha kan banagu soo noqonayay baahiyaadka iyaga oo maayirku ugu horeeyo waan u mahad celinaynaa iyo awiye raga la socda baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye halka kan baahiyaha ka jira magaalada tani malaha ceel biyood male sida uu sheegay maayirka degmadu waxaysan lahayn baraaga male waxaanu ka codsanaynaa dawladda Somaliland madaxweynuhu ugu sareeyo in waxa weeye magaalada tan baahiyaheeda in waxa weeye wana loo yimaada way noo yimaadaan kormeeradu way yimaadaan rag hay'adihi way yimaadaan warun baan laga qaada waxba nagu soo noqdaan ilaahay baa mahad labaad waxaan u celeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa weeye waxaan noo yimi gaadiidkii dawladda oo dhaansan
mahad weeye ilaahay baa mahad leh waxa weeye waanu sugaynay maayarka degmada xudun ninka maxamed jaamac xirsi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم halkan aanu joognaa waa magaaladii Higla Barwaaqo haddaan sida kale u dhigana waa higladii waa ku nabad qabnaa waa fiicanahay waxaanu ka soo kicitinay degmada xudun biyaanu geynay laba booydood oo biyaa baanu geynay waa lagu nabad qabaa waa deegaan aad u ballaadhan waa deegaan ummadii ay isugu timi dadkii soo guuray iyo dadkii hore joogayba waa meel ay isugu yimaadeen waa deegaan ballaadhan oo mana ah haddii aabbahay idmaayo waa deegaan u baahan biyo iyo baadba ummadii soo guurtay waa meesha ay ugu badan tahay higlada waa meel aan ceel lahayn waa meel aan baraaga lahayn ummadiina ay isugu timi haraadka ka taagan ilaahay baa qiyaasi kara waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ay u baahan yihiin oo biyood iyo mid baadba waa u baahan yihiin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dawladda Soomaaliland ee u soo dirtay degmada xudun uguna horeysiisay gaadiidkii ay gobolka Sool u soo dirtay degmada xudun aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka isagana aad baan ugu mahad celinayaa dawladda waxaanu ka codsanaynaa dadka soo guuray in lala soo gaadho gurmad biyood waayo meeshu waa oomane dad caraale waa awdan yahay ceelashii laga dhaamin lahaa waa awdiin biyaha aanu keennay tuulada waxaanu ka soo qaadnay degmada xudun waxaan u maleynayaa waa 120 kilomitir weeye baanu fool u soo soconay halkaasaa biyo ugu dhow biyo kale ay asarsadaan ma hayaan mas'uuliyiinta gobolka Sool ugu horeeya bada saabka gudoomiyaha gobolku waxaanu ka codsanaynaa ka degma ahaan in ay indha gaara nagu eegaan oo ummadda soo guurtay ee miisaanku saaran yahay degmada xudun iyo haddii ay bahidmayto ceelaf weyn iyo haddii ay bahidmayto garadag iyo tasanaagba in il gaara lagu eego ayaan dawladda ka codsanaynaa waxaan aad u salaamayaa goobtan aan joogno waa Higla Fuulaan bulshada reer Higla Fuulaan iyo odayaasha sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen oo gacmo furan ugu soo dhaweeyeen ayaan aad u salaamayaa hadda 4 casho ka hor baan Higla Fuulaan marnay annagoo sirfeena oo waddanka indhayndeena waxaan hadda u keenay booyado biyo ah oo afcaba insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya biyo dhaamiskii iyo wixii kale Ilaahay nagu soo dhiibo in Ilaahay noo fududeeyo wiilka bacdi inaan ku soo noqono ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan kaloo aan u baaqayaa sida ay u soo dhaweeyeen soo guurtada reer Higla Fuulaan dadka soo guurtada sida u soo dhaweeyeen oo baraagti labadii booyadood aan u keenay ee mid baraag biyo u shubeen oo yiraahdeen soo guurtada iskale iyana ay foostooyinka aad aragtaan wixii ka soo haray ku shubanayaan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan leeyahay annana Higla Fuulaan waana ku soo noqonaynaa markastana waa imanaynaa insha Allah biyo dhaamiska iyo wixii kale Ilaahay nagu soo dhiibo inaanu hadda u keenno ayaanu ku rajooweynaa haddana